golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo sharciga asxaabta. golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo asxaabta siyaasadda kaas oo dhawaan dib u eegis lagu sameeyay. kulan golaha wasiirada ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliya ayuu golahu waxa uu si aqlabiyad leh ku meelmariyay sharciga doorashooyinka oo muddo laga sugayay golaha wasiirada inay meelmariyaan. sharcigan ayaa lagu wadaa in loo gudbiyo maalmaha soo socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka si ay u meelmariyaan isla markaana madaxweynaha uu dikreeto ka soo saaro. ansixinta sharcigan ayaa lagu tilmaamay mid looga hordhacayo shirka wadatashiga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Garowe maalinta Sabtida ee soo socota, iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay la tagayaan sharcigaas oo la soo meelmariyay. ilaa hadda lama oga nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sanadka 2021 balse waxaa jiray aragtiyo kala duwan oo ku saabsan nooca doorasho madaxda dowladdu ay doonayaan in dalka ay ka dhacdo, inkastoo aanay suurtagali karin doorasho hal qof iyo hal cod ah. halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka kuwa kaloo muhiimena way jiraan oo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isi soo raacaan si hannaanka federaalka oo la sugaayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan. sharcigu wuxuu soo maray heerar badan. markii ay ugu muhiimsaneed waxay ahayd bishii Juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabto Baydhabo oo looga soo heshiiyay qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyay oo kala ahaa hannaanka doorashada iyo hannaanka deegaan doorashada. wuxuunaheedu yahay qaabka qofka Soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo labadaas arrimood oo kala hore looga soo heshiiyay. sharciga golaha uu maray baarlamaanku soo maray madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalaho ahaa. sharciga markii loo geeyay ciddii isticmaal lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaa laga arkay cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday. isbeddelkii wuxuu keenay in meelo qodobada cinwaanadoodii iyo referenceskoodii la beddelo meel kale la geeyo oo ay soo baxdo sharcigii markii nambarkan meesha uu jooga laga. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in awoodooda isugu geeyaan ka qaybgalka barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dhisayo dalka. xilli madaxweynaha Soomaaliya uu maanta kormeer ku tagay xarumaha haatan lagu dhisayo ololaha isxilqaan ee ku yaala Muqdisho. shan wanaagsan haysaan waa hawl runtii mustaqbalka carruurteen wax u taraysa kulligeenba waana wax idinkeena ka bilowday waana waxa waddankan hore loogu dhisay aanu dib ugu dhiseenno marka annagoona cidna sugin shisheeye aan raadsan inaan annagu dib u dhisanno oo qof alla qof kasta oo Soomaali wuxuu gelin karo waqti xoog xoolo inaan gashanno meeshaan waxaan rajaynayaa insha Allah maxaan ku raadin maktabadan library-ga waxaan filaynaa insha Allah haduu la yiraahdo muddo yar gudaheeda inay noqoto meel dhalinyarada kulli ay yimaadaan oo wax ku bartaan oo ay buugta ku akhristaan oo ay ku nastaan. ardayda Soomaaliyeed runtii cadadoodu waa 70%. haddii 70% golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhanka kale ka hor yimid xaaladii degdegta ahayd iyo buuq ka dhashay. xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan ka yeesheen xaaladii degdega ahayd ee uu maalin ka hor deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ku soo rogay madaxweyne Muuse Biixi. madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhawaan xaalad degdega oo socon doonta muddo 3 bilood waxa uu ku soo rogay degmooyinka Gar-adag, Ceelaf Weyn, Cerigaabo kadib markii gobolka Sanaag lagu dilay saraakiil ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland. kulanka golaha wakiilada ayaa waxa goobjoog ka ahaa 107 xildhibaan waxaana taageeray xaaladda degdega ah ee uu ku soo rogay madaxweynaha Soomaaliland 41 xildhibaan halka 66 kale ay diideen. hase yeeshee gudoomiyaha golaha wakiilada kulanka ayuu soo xiray. intaasi kadib buuq ayaa ka dhacay xarunta golaha wakiilada
Somaliland ee magaalada Hargeysa iyadoo gudoomiyaha golaha wakiilada uu sheegay in dib loo dhigay codeynta xaaladda degdega ah isla mar ahaantaana maalinta Sabtida dib la isugu soo laaban doono laakiin golaha ayuu xidhay taasina waa khalad waana sharci darro waana ka soo horjeednaa aqbalina mayno gobolada dalka in qaar la gudoomiyo waa maasantii bismillaahi raxmaani raxiim waa arkaysaan dee horta wax meesha ka socday gobolka Sanaag isagoo abaar la tiicaya oo ma garanaysaa marka horeba dhaqaale ahaanna inuu takoor ku jira tirsanayay isaga iyo gobolada kale bariguba ayaa waxa lagu soo rogay ciqaab jamaaci ah xukunka degdegahi xaalado badan oo kaga haboonaan lahaa tan maanta oo lagu soo rogi lahaa baa hore u dhacay 100 qof baa maalin dhintay oo aan xukun degdeg la soo rogin beela isweerarayo isu dhinaca kalena ciidamada cad oo ah Muqtaar Robow iyo Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Boqol ciidamada cad oo ah Sheekh Muqtaar Robow Cali Abu Mansuur oo u xiran dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal culus waxa uu ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolka Boqol ciidamada daacad oo ah Muqtaar Robow ee loo yaqaano Caaro ayaa sheegay in dagaal uu ka dhacay xaafadda Abay oo qiyaastii 18 kiiloomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Xudur ilaa iyo hadda wax faahfaahin lagama hayo qasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac ciidamada daacad oo ah Robow ayaa ku urursan agaarka magaalada Xudur waxaana wali la hirgelin qorshe la doonayay in loogu biiriyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya heshiiska ay ugu biiriyaan ciidamada dawladda ayaa qayb ka ahaa kii dhaxmaray dawladda iyo Muqtaar Robow markii uu isku soo dhiibay Abu Mansuur dawladda Soomaaliya hase ahaatee qorshahaasi ayaa imika u muuqda in uu fashilmay ciidamada taageersan Muqtaar Robow ayaa la rumaysan yahay inay dib uga dideen dawladda wixii ka dambeeyay markii la xiray hogaamiyahooda docda kalena sargaal Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada ayaa isku soo dhiibay ciidanka dawladda wararka ka imaanaya gobolka Godo ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo u qaabilsanaa qaybta qaraxyada uu isku soo dhiibay ciidanka dawladda ee ku sugan magaalada Garbaharay sargaalkan ayaa lagu magacaabay Yuusuf Axmed Cadow waxaanu isku soo dhiibay taliska ciidanka xoogga dalka ee xaruntoodu tahay Garbaharay wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in sargaalkan uu la soo xiriiray ciidamada dawladda ka hor inta aanu isu soo dhiibin waxaanu saaka soo gaaray Garbaharay maalmihii ugu dambeeyay waxa ay soo taraya xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibaya gobolka Gado waxaana ugu dambeeyay sargaal lagu magacaabo Aadan Coobe oo dhawaan diyaarad looga soo qaaday baar dheere lana keenay Muqdisho docda kalena ciidamo gadoodsan ayaa weerar ku qaaday bangi ku yaala magaalada Boosaaso wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamulka Puntland ay muddo kooban la wareegeen xarunta bangiga dhexe ee Boosaaso ciidamadan bangiga hakiyay shaqadii ka socotay ayaa la sheegay inay ka cabanayaan mushaar la'aan dhowr bilood ah waxaana ciidamadu markii xarunta ay la wareegeen ay fureen rasaas badan dadkii ka agdha waa halka uu bangigu ku yaalo ayaa sheegay inay kala carareen kadib markii rasaas badan cirka loo riday waxaanay dadka qaarkood moodeen in goobtaasi uu ka socdo iska horimaad wararkan helena ayaa sheegaya in ciidamada gadoodsan muddo kooban ay hakiyeen shaqadii bangiga sidoo kale ay diideen in la soo galo bangiga waxaana ciidamadu ay dalbanayeen in mushaarkooda la siiyo saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay in markii dambe ay gaareen bangiga dhexe ee Boosaaso waxaana saraakiisha ciidamadu ku qanciyeen in ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda lana xalin doono cabashooyinkooda xaaladda magaalada Boosaaso ayaa caadi ku soo noqotay mana ahan markii ugu horeysay ee bangiyada Puntland ku yaala la wareegeen ciidamo maamulkaasi ka tirsan oo ka cabanaya mushaar la'aan docda kalena dawladda Mareykanka ayaa shaacisay in ay dileen Cabdullaahi Jabiyow oo hogaaminaya weer lagu dilay askari Mareykan ah war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyn diyaaradaha Mareykanku ka fuliyeen gobolada Jubbooyinka ay ku dileen sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab afayeenka ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala Colonel Chris Canis ayaa sheegay in duqeyn ay ku dileen sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo hogaaminaya weer ka dhacay Barsanguni oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka waxa uu sheegay afayeenku in duqeyn ka dhacday 19 bishii hore Abriil meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdullaahi Jabiyow iyo dagaalyahan kale afayeenka ayaa xusay in sargaalkan ay dileen uu hogaaminayay weerar hoobiyaal ah oo 8 bishii Juun ee sanadkii 2018 lagu qaaday xero military oo ku taala Barsanguni waxaana weerarkaasi ku dhintay askari Mareykan ah oo lagu magacaabo Alexander Conrad diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fuliyeen deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab waxaana marar badan ay shaaciyeen in duqeymo ay ku dileen saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab Taliban iyo xukuumadda Afghanistan ayaa wada hadallo waxa uu kaga socdaa Qatar ururka Taliban ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyahooda uu magaalada Doha kulan leeyahay saraakiil sarsare oo ka socota
dalalka Jarmalka iyo Indonesia. kulankan ayaa waxaa looga hadlayaa xal u helidda dagaalka ka taagan Afghanistan waxaana sidoo kale ku sugan ergeyga Mareykanka ee arrimaha Afghanistan Mr. Salmay. Khaliil Saad waxa uu xaqiijiyay in kulamo uu la qaadanayo saraakiil matalaysa Taliban si loo gaaro heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalada. dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa waxay sheegayaan in wada hadallada diiradda lagu saarayo sidii Afghanistan looga badbaadin lahaa inay gabaad u noqoto argagixisada caalamka. dhanka kale kulan looga hadlayo arrimaha nabadda ee dalka Afghanistan ayaa muddo 4 maalmood waxa uu ka socdaa magaalada caasimadda u ah Afghanistan ee Kabul.